waa kaga mahadcelinayaa barnaamijkan waana kugu dhiirigelinayaa. Runtii waa barnaamij ku dayasho mudan. Waxaan u malaynayaa waa markii ugu horreysay oo barnaamij noocan oo kale ah aan arko. Waana soo dhaweynayaa. Haddii aan barnaamijka u guda galo, sax magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Suule, ku magac dheer Cabdicasiis Mudane. Waayaha sports ama ciyaaradu wuxuu kasoo bilowday gobolka Mudug, magaalada Gaalkacyo. Sidii caadiga ahayd oo qof ka soo wada maray ciyaar seersi ciyaar xaafo. dhalinyaro xaafada baan ahayn oo dhalinyarada godka ama katabaani la oran jiray. Halkaasaan ku ciyaari jirnay si koob seersi oo Yemeyska baan ka qayb gali jirnay. kooxaha markaas levelka yaga ahay oo magaalada haddaan wax ka xuso, dhalinyarada Cadalay, dhalinyarada Inji, dhalinyaradii Esolow oo marka Fallujah inta Fallujah imaan Esolow la oran jiray. dhalinyarada ka imaan jirtay Ciid Guduud iyo dhalinyaro siinayn dhalinyaro sidaas ah oo ba koob Serbi Sersi. Kadib koob Serbi waxaan Serbi loo soo gudbay 2 koob oo Serbi baan soo ciyaaray. midkii ugu horreysay oo koobka Serbi dhalinyarada xaafadayadii anagu si isku xiran, dhalinyaro horta isku xiran baan ahayn oo xoogan oo ilaa iyo dhowr 20 ah 22 meelahaas. dhalinyartayadii Sersidii oo soo wada kacnay Serbi intayadii ku wada nimid ma jirin, wax nagu soo biirin ma jirin. wax xaafadda markaas ka soo kaco ma ahan dhalinyaro xaafadda oo isku xiran oo baan ahayn. koobka ugu horreeyay Serbi Royal Supermarket baan ka qayb galnay. isaga Royal Supermarket ugu horreeyay maranaya magaalada Gaalkacyo. Royal Supermarket baa taageerana siiyay, isaga koobka ka qayb galnay. sabab final baan ku haray haddaan khaldanayn. Cadalay baa nagu reebtay 2-1 inay naga badisaan jeclahay. kadib koob Serbi oo dambaa jiray oo magaca Hombaro isku soo abaabulnay oo magacii Hombaro aan Serbi kaga soo qayb galnay annagoo intayadii ah. dhalinyaro runtii xoogan oo markaas saameyn ku lahaa dhalinyarada soo kacaysay baan ahayn. kadib koobkii maanta basketka baa naga qaaday. runtii rigoryaal inaan naga qaadan jecel haddaan khaldanayn. markii aan koobkii Serbi halkaas labaad halka uga harnay, dhalinyaradii levelka yaga ahayd Sare A la wada aaday, annaka hami Sare A baan wada galay. Sare A soo galno isku day waxaa jira isku daynay oo aniga iyo dhalinyaro xulufo ahayd haddaan wax ka xuso safaxaarin iyo aniga iyo dhalinyaro sidaas. markaas Ciid Cabaaye waa gudoomiye ka ahaa gobolka. Ciid Cabaaye aan u tagnay inaan sidayada Sare A ku nimaano dhalinyaradayada isku xiran aan isku filannahay. markaas fan aan helayno kooxahanna isku filannahay baan u soo gudbinay. runtii waan qiimeeyay codsigayagii. waxbaan fiirinayaa buu yiri. markaas waxaan jeclay 9 koox baa oo Sare A baa jirtay, koox baa ka dhimanayd. kooxdaasaan u dagaalanay oo isku daynay. ma isa suurtoobin oo isku daygaas mid suurtoomo u soo noqon. haddii aan khaldanayn 2 koox baa mid booska 10aad buuxiyay. inay Shambalaas ahayd iyo inay Fallujah ahayd baan kala garanayn. banan mataqaanaa 2 koox mid baa booska 10aad noqday. isku daygayagaas muusan dhalinyaro yar oo markaas aad u dhalinyaro ahayd oo dee baan ahayn. marka kadib Sare A lagu kala yaacay qolada ninba meel buu ka dhacay. aniga oo kooxda Banaadir diskeeda ku jira oo anaa koobka ciyaar safar baan tagay. koobka ma aanan ka qayb gelin. kadib markaan soo laabtay kooxdii hore Excalcom baa adigu iskugu nimid, dhalinyaradii isku soo wada ururnay. kooxdaasaan aalamiinta la bilownay oo ciyaar saxtuna ciyaarnay. koob baa la furay, koobka waan ka qayb galnay. koobkii kooxdii Excalcom ku guuleysatay. dacwa koox saragii hore oo markii ugu dambeeyay koobkaas ka muuqday maxamed Sheekh Xasan Naafac, rag sidaas oo Mustafa Walwa Sootax Janaale ka boqol rag saas markaa joogay. adigu koobkii kadib waxaa dhacday kooxda Bisantar oo marka hore Bisantar la oran jiray. koobkaas annagu aan ciyaaraynay magaca waxay ku ciyaaraysay horeeye. markuu koobkii ay u dhamaaday galab waxaan xustaa dhalinyaradaydii baa Ismaaciil Military iyo Ismaan Sheekh Cabdi Ismaan Bilfarmo baa haddii ilaahay ku ron yahay baan saaragnay. kooxdaan baan waxay yiraahdeen dhalinyarada kooxdaan mataqaanaa inaan isugu nimaano oo
ama magac u raadina ama meel wada hal dheer kooxdii Hombaro sidii uu magacii Bisantar isugu bedelay sidii baan kooxdii Hombaro aan mataqaanaa to dhallinyaradeedii ku wada joognay wajiyo kala duwan bay soo maray waayo kala duwan runtii waqti way ahayd aad mataqaanaa xiiso u leh koob kala duwan kooxda Hombaro waa kala soo guuleystay koob one day kaaba iyo koob horyaalla intaba hal koox oo kale waxaa jira hal koob oo kale waxaa jira koox Yamaska aan u ciyaaray walow uusan koobkaas meelna xoogaas hakad uu ku yimid haddana kale waa waqti waayahay ka mid ahayd inaan xuso koox gobolkii ka dhisan oo gobolkii mataqaanaa maamuus ku leh inaan mataqaanaa kasoo muuqday dib waxa weeye aniga aan ka tegi karin oo aan ignoor garayn karin intii kale u badnay waayahay Hombaro kusoo qaatay oo kula soo guuleystay markii aan kubadda ka fariisanayay oo rayramadii ayadii baan mataqaanaa kaga waqtigeygu ahaa haddii aan barnaamijka usii gudbo runtii waqtigaas dhalinyaro aad tiro badan oo maamuus ku leh oo aad u wanaagsanaa baa gobolka soo maray haddii aan mataqaanaa to 11 riyada ah oo 11 aan xulan lahaa iyo macalinka ugu wanaagsanaa kulankii ugu murugada badnaa oo intaba aan dib mataqaanaa su'aalahaas ugu soo laabto runtii kulankii ugu adkaa aan mataqaanaa murugadii macnaha guuldaradii igu xanuunka badnayd waxaan u maleynayaa haddii aan khaldanayn kooxda Yamaska final ay nagu reebtay dhalinyaro markaas aan xifaaltamay jirnay ilaa seerabadiyadii oo markaas runtii dhalinyaro aan saaxiibada ahayd challenge naga dhexeeyey baa koobkaas mataqaanaa aydan reebay maalintaas waxay ahayd maalin mataqaanaa xanuun badan goolkii aan isdhihi karo waa goolkii ugu saameynta badnaana kooxda RBS baan ka dhaliyey koob final ah oo munaasabadan ahayd baan jeclahay macalinkaan xulan lahaa macallimiintii gobolka soo maray runtii macalimiin adigu qiimo ugu leh oo aad u wanaagsan baa gobolka soo maray maxamed cabdilla ka mid yahay Ilyas Cabdinuur ka mid yahay Cabdullaahi Taali Cirba ka mid yahay rag badan baa gobolka soo maray intaan ka tegayna ilmaha hadalka ma jiro runtii macalinkaan aan is dhihi karo macalinkaan xulan lahaa Ilyas Cabdinuur baa Ilaahay u naxariisto naxariisna ka waraabiyo 11 aan xulan lahaa haddii aan niyahow isku dayo aweysna la oran jiray oo baan boorteeri mataqaanaa ayto soo qaatay lambarka 2 waxaan soo qaatay nin la yiraahdo Kabo Qolof Yare lambar 3 waxaan soo qaatay nin caaniga la oran jiray lambar 4 iyo 5 waxaan soo qaatay nin la oran jiray iyo Sayd Cumar numberka dhexda sigiska maxaan hore waan soo qaatay aydka Mukhtaar nin la oran jiray oo Telecom iyo Banaadir u ciyaari jiray soo qaatay labada garab dalbayare iyo Abras baan soo ka dhigi lahaa lambar 7 iyo lambar 11 oo Abras ah iyo dalbayare oo lambar 7 ah numberka 7 Mukhtaar Yare baan ka dhigi lahaa 9 kana waxaan ka dhigi lahaa Farisay macalinkeena Ilaas baan waa ku ciyaari karay waan ku ciyaari jiray way u fududayd yaraanteydii anigoo labada lug baan ku ciyaaro kubaddeedu midig ay ahayd midig u badnayd waxa dhacday in lugta midig dhaawac iga soo gaaray oo pressure laga sameeyay kadib anigoo injiriga ka baqaya ama dhaawac inuu igu sufido ama ay igu soo weynaado lugta bidix ma ku ciyaari jiray kubaddeedu u badnayd aad baan ula qabsaday waxa dhacday in dadku ay inaan midig ahay inaan bidix ahay aysan mataqaanaa aad u kala garan karin marka sidaas ay sahashay inaan labadii lugood ku ciyaaro boosinka dhexdana waa ka ciyaari jiray lambar 6 ama lambar 8 labada number baan ka ciyaari jiray oo kubaddeedu u badnayd walow ay jirtay mar aan garabka ciyaari jiray oo garabka midiga to kale ama bidixda kale labadaba aan ka ciyaari jiray waan garanayaa laakiin kubaddeedu waxay u badnayd dhexdaas u badnayd sidaas aan fudeysay saaxiibana labada lugood ku ciyaaro kubadda labada lugood mataqaanaa ay isku ka mid noqdaan aad baan u mahadsantahay